إيران waxay si rasmi ah u shaacisay liiska 20 dal oo ay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen dibadbaxyadii sanadkii tagay oo dhan ka dhacayay gudaha dalkaas kadib geeridii Mahsa Amini. Waa liis ay ku jiraan dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Sacuudiga oo dhawaan ay la heshiisay Iiraan. dibadbaxyada ayaa bilaabmay 16 Sebtembar kadib markii ay xabsiga ku geeriyootay Amini oo ahayd 22 jir Kurdish ah kadib markii loo xiray inay jabisay xeerka adag ee labiska haweenka Iiraan. boqolaal qof ayaa la dilay oo ay ku jiraan tobaneeyo shaqaalaha amniga ah isla markaana kumanaan kale ayaa loo xiray baaritaan ay sameeyeen. adeegga sirdoonka ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayaa tilmaamaya in qiyaastii 20 dal ay ku lug lahaayeen rabshadaha. waxaa sidaa yidhi madaxa sirdoonka Iiraan General Mohammed Qasimi ayaa sheegay in Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Canada, Belgium, Talyaaniga, Israel, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay kamid ahaayeen dalalka ku lug lahaa hurinta dibadbaxyada. sida uu ku sheegay waraysi uu siiyay warbaahinta dowladda. Sacuudiga oo dhawaan Iiraan ay dib ula bilowday xiriir diblomaasiyadeed kadib 7 sano oo hakad uu ku jiray xiriirkoodu ayaa ku lug lahaa. sida uu Qasimi ku sheegay waraysiga oo lagu daabacay website-ka hogaamiyaha sare Ayatollah Ali Khamenei. in badan oo kamid ah dalalka uu sheegay waxay si cad taageero ugu muujiyeen dibadbaxyada, waxayna Iiraan iyo ciidamadeeda amniga ku soo rogeen cunaqabatayna la xiriira xukumo qooninta dibadbaxayaasha. Qasimi wuxuu sidoo kale tuhmay in hay'adaha sirdoonka Imaaraadka iyo Israel ay kulamo goos ah ku qabsaneen dal Carbeed si ay u taageeraan dhibaatada socotay. waa sida uu hadalka u dhigay. Khadar Haybasaab TV. واو واسبوعك يسوي في عيسى صاحبي wadkeeshi Soomaa ما شاء الله صح ما عاد وش بصير waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa